halkaasoo aanu rajaynayno inaannu kula kulanno dadka riyaha dhaqda ee ku nool saxaraha rafaadka leh. Sagra, Mauritania. dadka meeshan aaminay noloshoodu waxay ku tiirsan tahay xoolaha nool. inta badan riyaha ayaa lagu dhaqdaa deegaankan. اسمي شغل اليوم الصباح magacaygu waa Diidi. shaqada waxaan bilaabaa subaxda hore. waxaanu lisnaa riyaha. waa la waraabiyaa kadibna waxaa loo foofiyaa nawaaxigaas. duhurkii ayaanu soo celinaa. markaasoo dadka adhiga raaca ay cunto iyo shaah u soo doontaan guriga. maalinta xigtana waa sidaas. Diidi iyo xoolihiisuba waxay raacaan amaba ay ku socdaan dariiqyo aan muuqan, kuwaasoo aanay ka habaabaynin maskax ahaanna ay u garanayaan, inkastoo saxaruhu uu weyn yahay oo uu isu eg yahay. marka aynu jaleecno dhinaca guriga, haweenka ayaa shaqada haya. reer guuraagu waxay xirfad u leeyihiin inay weelka lagama maarmaanka u ah ka samaystaan hadba wixii ay heli karayaan, sida hargaha. ciirta ayay lulaan sida Soomaalida, waxaana ay ka soo saaraan burcadka muhiimka ah. imikana waa xilligii la dheeli lahaa oo deegaankan laga jecel yahay. marka ay duhurkii gaadho ee uumiga qorraxdu uu laba jibaarmo, Diidi iyo adhigiisuba waxa ay yimaadaan ceelka saxaraha ku yaala oo biyihiisu ay suuragal ka dhigeen nolosha saxaraha. balse marka biyuhu ay dhammaadaan waa lagu kala tagaa goobtan. inta ceelkani biyo leeyahay waannu joognaa. inta badanna waxa uuna gaadhsiiyaa 2 bilood, 3 bilood iyo mararka qaarkood 6 bilood. wax waliba waxay ku xidhan yihiin cuntada iyo biyaha aannu haysanno markaa. saxaraha weyn ee Afrika waxa uu hadda ku faafay deegaano kayma ahaa oo hadda isu beddelay saxare, taasi oo ka dhalatay isbeddelka cimilada. sanadkani sidii kii ka horreeyey oo kale waa abaar iyo biyo la'aan. waxaad maalintii ceelasha ka heli kartaa 20 litir oo keliya, waanay nagu adag tahay. مرة 20 مرة واحد منهم أمزاهم من سبيقنا كنا هي سرحت شوف العام شفاف وفرقت حية فرق نصها كامل. xilliyada roob la'aanta ee ceelashu ay guraan, reer guuraagu waxay qodaan ciidda. waa hawl qaadan karta saacado iyo xitaa maalmo. reer baadiyaha adkaysiga leh wuu ku noolaan karaa si kasta oo xaaladuhu isu beddelaan. micno lama laha, wuu samaynayaa wax kasta ha ku qaadatee, ayaa uu yidhi Diidi. marxaladda camuudda iyo cadceedda kulul ee halkan ka jirta ayaa nolosha ka dhigtay mid adag oo sidaasi ku socota. Mauritaniana waxaa nolosha caynkaasa ku nool 250,000 oo xoolo dhaqataa. Diidi waxa uu tabayaa in farsamada casriga ah ay nolosha sahli lahayd. waxa uu jeclaan lahaa magaalada in laga hirgeliyo nidaam biyo qabatina oo la qabanayo biyaha qulqulka ee roobka, halkii ceel 5 mitir oo hoos loo qodi lahaa. sidoo kale waxaan ku talin lahaa ayuu yidhi in ugu yaraan 1 booyad oo qaad weyn ay hal mar biyaha soo qaadi karto, halkii 3 ilaa 4 jeer biyaha loo safri lahaa.
muddo qarniyaa reer guuraaga saxaruhu waxay raacdo ugu jireen biyo iyadoo ay caqabad ku tahay camuudda hadba dhinac dabayshu u waddo ee saxaraha lagu yaqaano. magaalada qadiimiga ah ee Shanqiidina waxay la tacaalaysaa dabaylaha dhaca xilliga bilaha Juun iyo camuudda aan joogsiga lahayn ee saxaraha ka soo burqanaysa, taasoo qaybtii qadiimiga ahayd ee magaalada aastay qaybo kalena ka dhigtay mid laga guuray. balse maanta waxaa soo hadhay oo keliya qayb magaalada ah oo ku taalla meel sare. mid ka mid a maktabadaha magaalada ugu qadiimsan oo ay ku kaydsan yihiin kutub islaamiya ayaa hadda lagala tacaalayaa dabaylaha saxaruhu inay aasaan. balse ninkani oo awowgii Axmed Maxamuud loogu magac daray maktabaddani ayaa ilaaliya. هذه مكتبة مخطوطات. waxa uu sheegay in kutub islaamka ka warramaysa oo qadiimi ahi ay halkan yaalaan, kuwaasoo ay ka dhaxleen 4 awow oo qoyskooda ah. maktabaddana waxaa la aasaasay qarnigii 13aad. تاريخ تأسيسها يرجع إلى عهد الطالب محمد أحمد اللي هو maktabadda Axmed Maxamuud waxaa ku kaydsan kutub kale oo aqoon-yahanadii Afrika ay qoreen qarniyadii dhexe. buugaagta ugu muhiimsan ee halkan yaalla waxay ka hadlayaan diinta, sababtoo ah nolol maalmeedka dadka ayaa ku xilan diinta. kutubta kalena waxay ka hadlayaan arrimo xiise leh oo ay ka mid yihiin sida dadka reer Mauritania ay ugu fiicnaayeen cilmi falaga, xisaabta iyo luuqadaha. أكثر أهمية حاجة الناس اليومية. مدى تضلع الأوائل والكتاب والمؤلفين الشناقطة. sidoo kale waxaa jira kutub kale oo ka hadlaysa noloshii Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha noqotee. qoraalka kitaabkan ayaa waxa uu soo jiitay dalxiisayaal badan oo akhriyay buuggani, balse waxaa xiisaha leh waa qoraalka ku qoran oo tilmaamaya xadiisyo ku saabsan dabeecadihii iyo ficiladii Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha noqotee, waana sababta uu muhiim u yahay. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيه أفعال وأقوال، لأن احنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياتنا هي الحياة الحقيقية، وإن هذا الكتاب من أهم الكتب عندنا، وبالتالي من قاعدة تبيت اخترت لهم مع أنه ما هو تام، يقول هذا الكتاب من أعظم الكتب من أجلهم طبعا في تاريخ الإسلام. maadaama aanu haysanin tiknoolajiyad casriya oo ku dayactira kutubta, balse waxa uu isticmaalaa qaab kale oo dabiici ah oo uu ku ilaaliyo cimriga kutubtaasi taalla maktabadda qadiimiga. qorraxda ayuu u dhigaa si ay uga disho huurka iyo jeermiska. سينتقتل المجراثيم وتمتصك الرطوبة. magaaladan Shanqiidi ayaa waxaa la aasaasay 777 qarnigii 11aadna waxay noqotay xarun ganacsi oo isku xidha wadamada saxaraha ka hooseeya iyo badda Mediterranean-ka. ninkan da'da ah ee baadiyaha ku nool ayaa xusuusanaya sidii aabihii iyo awowyadii ay u safri jireen. من عود الصيف يقبضوا يبلهم. xilli dhan ayaa la sugi jiray si ay noogu keenaan waxoogaa timira. aabbahay oo ay weheliyaan ilaa 100 nin oo kale ayaa israaci jiray iyagoo wata ilaa 300 oo awr, waxaana ay maqnaan jireen ilaa 45 cisho oo ay ugu safri jireen Suudaan ama Morocco. يعدل كيف ذلك الكتاب كل واحدة هون واحدة هون واحدة هون كل يدخل فيها حبل وينضم ومن دار عليهم الملك. aasaar qadiimiya ayaa ku wareegsan magaaladan Shanqiidi, waxaana ay muujinayaan taariikh ah kumanaan sano halkaasi inay deegaan u ahayd ummado hore. sawirro lagu arkay dhagxaanta ayaa muujinaya meeshan inay ahaan jirtay dhul caws ka baxo oo dadka degganaa ay lo'da dhaqan jireen. boqolaal sano kadibna saxara ayay noqotay. camuudda ayaa dadka magaaladan Shankeeti waxay ku khasabtay inay guuraan mar labaad oo magaalada ay ka dhisaan dhul sare. سؤال جاب على سؤاله. ها waanu ka soo guurnay Shanqiididii qadiimiga ahayd ee la degay 777 waxaanu dul degnay buurta yar ee la yiraahdo Gawti si aanu uga dhisno Shangeeti labaad oo ka badqabta camuudda saxaraha. على راس guryahaas aad arkaysa waxaanu ka dul dhisnay kuwii hore ee qadiimiga ahaa oo aasmay. camuuddii saxaruhu waa ina soo raacday buurta dusheeda ayay noogu timi. في معدات من على ديار بني على ديار خراب، يعني الزيارة ما فات خريطة. هاي الزيارة ذا هي. dabcan camuudda saxaruhu waxay halis ku tahay kutubta maktabadda yaalla oo wax kuwa ugu nugul. wax kasta oo magaaladani ay hore u lahayd hadda ma jiraan,
taasina waxay Jankeeti ka dhigtay hubaal la'aan dhinaca mustaqbalka ah. بعض الأحيان احنا نخاف عليها. waxaan cabsi ka qabaa in magaaladan magaceeda la waayo, waxaana taasi horseedi kara arrimo ay ka mid yihiin camuudan aasaysa magaalada, dadka oo ka haashiraya iyo waxyaabo kale. haddii ay taasi dhacdana dadka ka yimaada caalamka carabtu ma iman doonaan Mauritania, sababtoo ah Mauritania waxaa adduunka looga yaqaanaa dhulkii Shanqiidi amaba Jankeeti. ياسر الدول العربية وياسر من الناس يجوا موريتانيا. موريتانيا معروفة لبلد شنقيطي. dadka ku nool Shankeeti waxa ay maalin kasta la tacaalayaan camuudda aan joogsanaynin ee ka soo duulaysa saxaraha. ma jiro qorshe dhir lagu beerayo si loo joojiyo saxaraha soo baahaya ee weerarka ku haya magaaladan. sidoo kale ma jiro tasiilaad ay halkan ka heli karaan dalxiisayaasha iyo dadka baayac mushtariga ah haddii baahidaasi ay timaado. saxarahani waa ka ugu kulul saxarayaasha dunida. heerkulkiisu waxa uu si sahlan u gaadhaa 50 darajo oo cabbirka loo yaqaana Celsius. in la helo ilbiya ku jiraan waa sababta keliya ee halkan ay ugu badbaadi karaan dadka iyo xayawaankuba. saxaraha dhexdiisa biyuhu waa nolosha. qalcadda loo yaqaano Tarshiid waa mid ka mid a meelaha ugu cajiibsan dhulka Mauritania ee saxaraha ku yaala. waxay ku taallaa meel ay iska galaan dacalka saxaraha iyo buuraha dhaadheer ee gobolka loo yaqaano Adrar. kumanaan sano ayaa biyaha durdurka ay ka soo degayeen dhagxanta buuraha oo si dabiiciya Ilaahay halkaasi ugu abuuray. biyahaasi awgeedna dhir badan ayaa goobta ka baxday oo biyuhu ay hoos maraan. Jamaal waxa uu ka soo jeedaa dadkii ugu horreeyay ee halkan degay qarnigii 14aad. وقافلة معاهم أزالة الناس تقيس السعودية على كرعيها حاج. awowgay oo ku socday magaalada barakaysan ee Makka al-Mukarrama ee Sacuudi Arabiya, isaga iyo rag kale ayaa halkan soo maray. harraad ayaa soo wajahay markii biyuhu ay ka dhammaadeen. waxay isku dayeen inay kala jeexaan, balse waxay arkeen biyaha ka soo baxaya dhagxanta buurta. sidaasi ayay ku heleen Tarshiid. dadkii la socday qaar way iska tageen muddo kadib, laakiin awowgay waxa uu go'aansaday inaanu ka tegin halkani. awowgii afraad ee Jamaal ayaa beeray geed timireedkii ugu horreeyay ee halkan ka baxay, balse dhir badan oo maanta ka baxday qalcaddani waxay u yeeshay bilic soo jiidasho leh. biyuhu waxay suuro geliyeen nolosha dhirta, iyadoo ay jirto farsamo fudud oo waxtar leh oo Jamaal biyaha uu ugu leexiyo dhirta kale. bulshooyinka ku dhaqan qaybaha kala duwan ee gobolka Adrar ayaa sidoo kale ku tiirsan nolosha qalcaddani Tarshiid. biyaha ayaannu inta badan wadaagnaa, dadkuna waa ay yimaadaan halkani waayo biyuhu waxay la mid yihiin nolosha. ما نحكي عنهم ساكنين القرية كاملة لما تستهلكوا كيف تبغي ما عندها مشكلة. biyo joogta oo la isku halayn karo waa dhif iyo naadir in saxaraha laga helo, balse meel kasta ha noqotee dadka iyo xooluhuba halkaasi ayay u boqolaan. halkan waa meel ku taalla waqooyi bari waddanka Chad. geelani ayaa 7 cisho waxa uu u socday si uu u doonto biyaha ku jira halkani. geelu waa xoolaha nooca ugu adkaysiga badan cimilada qarfada ah ee saxarayaasha. in badan ayuu biyaha iyo baadkaba ka qatanaan karaa. saxarahana wuu dhex socon karaa, waxaana u saamaxaya indhihiisa, sanka iyo cagta ballaadhan oo intuba ay la jaanqaadayaan rafaadka saxaraha nooluhu ay ka mutaan. harka dhagxaanta hoostooda ka jira iyo biyaha qabow ee Ilaahay halkan dhigay ayaa geelani uu jeclaysanayaa, iyagoo qaarkoodna ay dabaalanayaan. meelaha noocan oo kale ah aad bay u kooban yihiin, sidoo kalena way kala fog yihiin. meel u jirta halkani 300 kilomitir waxaa ku nool bulsho aan nasiibkoodu fiicnayn. Amne Bashaar Axmed waa 65 jir, waana dadkii ugu horreeyay ee degay magaaladan Urikasoni oo hadda ah xero qaxoonti.
هناك شغل تردانا شغل دي الجمجوي تردانا waxaannu halkan joognay ilaa 2004 kadib markii ayna laayeen maleeshiyaadka janjawiid ee dalka suudaan kuwaasoo nagu khasbay inaannu soo qaxno qof kastaana qoyskiisa ayuu la baxsaday xitaa wiilashan yaryar ayaannu cabsi awgeed u xidhnay labiska hablaha annagoo xilliga habeenkii baxsan jirnay maanaan garanaynin meel aannu tagno keliya xadka ayuun baannu ka soo gudubnay dabaylaha aan kala joogsiga lahayn iyo heerkulka sarreeya ee saxaraha ayaa ku dhacay dadkii u soo haajiray kaamkani kuwaasoo badankoodu ka soo cararay xasarado ka dhacay gobolka daarfuur ee dalka suudaan oo 7 kilomitir oo keliya u jira kaamkan urikasoni khatartii way ka soo carareen inkastoo aanay ka fogayn balse waxaa aad ugu dhow ilbiyood joogto ah taasi oo aan hore halkan uga jirin waana hare gacanku samaysa taasi oo taageerta nolosha in ku dhow 30,000 oo qof haradan kaariyaki waxay kaartay nolosha qaxootiga ka soo cararay colaadaha ee saxarahan dhex degay hay-adaha samafalka ayaa gacan ka geystay halganka haradan lagu hirgeliyey waxaana maalintii loogu talagalay qof kasta oo xeradan ku jira inuu helo 15 litir oo biyo ah ama ugu yaraan 5 litir sida ay qoondaysay qaramada midoobay أهميتنا كله دايرين نعمل موية نقية xuseen annuur jubaar waa farsamayaqaan biyaha ka shaqeeya waxa uu sheegayaa in ahmiyaddooda koowaad ay tahay in biyaha wax laga qabto si loo helo biyo nadiif ah oo aan lahayn bakteeriya oo bulshadu ay hesho marka la eego nolosha amne iyo dadka kale ee qaxootiga ah biyuhu waa sababta keliya ee halkan ay ugu nagaadeen waxaana xusuustooda ku jirta biyo la'aanta iyo rafaadkii hore ay soo mareen waxaannu ku tiirsannahay kaalmada qaramada midoobay balse waxaan leeyahay beer yar oo khudaare ay ka baxdo dakhliga ka soo baxana waxaannu ka iibsannaa sonkorta amaba daruuriyaadka kale sida milixda iyo shaaha amne sidoo kale waxay waxbarashada geysay carruur halkan ay ku daryeesho halkan waa saaxil amaba waddanka senegaal waa dhul bannaan oo qallalan oo leh dhir teelteela waxaa kaabiga ku hayaa saxaraha weyn dabaysha ayaa soo gaadha halkan waxaana ay burburisay dhulbeereedyo sidoo kale waxay wiiqday nolosha bulshooyin nugul oo halkan ku nool balse waxaa jira dad la halgamaya dabaylaha saxaraha kuwaasoo u tafaxaytay inay dhir beeraan si ay uga takhallusaan saamaynta halista ah ee saxaraha iyo soo celinta nolosha mustaqbalka ee malaayiin dada kornel baba weligaaye waxa uu yidhi waxaan ahay agaasimaha hay-ad qaran oo la yidhaahdo waaxda gidaarka cagaaran ee senegaal ay iskaga difaacayso saxaraha gidaarkaasi oo dherarkiisu uu dhan yahay 545 kilomitir oo dhir laga beerayo sidaas awgeedna waad aragtaa dhirta ka beeran hareeraheenna waa hawl la bilaabay 2010 dhirtu waa difaaca koowaad ee lagaga hortago xaalufka waxaa jira qorshe laysla qaatay in la dhiso gidaar cagaaran oo ah dhir badan oo laga beerayo inta u dhaxaysa Dakar caasimadda Senegaal ilaa caasimadda Djibouti waana ilaa 11 milyan oo hektar oo la doonayo in dhir laga beero si saxaraha weyn looga joojiyo ku sii faafo qaybo kale oo qaaradda Senegaal waa waddan qarka u saaran inuu saxaro noqdo oo uu nabaad guuro waxaannu lubinay 35,000 oo hektar oo dhula waxaannu soo celinay 30,000 oo hektar balse waxa aanu u baahannahay inaannu kordhinno heerka soo celinta si aannu u yarayno nabaad guurka ibraahim daawara waa maamulaha dugsigani waxa uu sheegayaa in nabaad guurku uu sababay faqri iyo camal la'aan ku habsatay bulshada L'école a ouvert ses portes après. dugsigan markii albaabada loo furay sannado yar kadib waxaa lagu khasbanaaday in albaabada loo laabo dhibaatada jirtana waxay tahay dadka ayaa hadba meel u guuraya manaanan haynin habaannu carruurta ku joojinno sidaasi awgeed dugsigan waa la xidhay 2006
sont obligés d'être avec leurs parents. Nous aussi, on n'a pas les moyens de retenir les enfants. waddanka Senegal ayaa xudun u ah inuu guulaysto hannaanka gidaarka cagaaran ee saxaraha iyo nabaadguurka lagaga hortegayo waxaana qorshahaasi ku hoos jira hirgelinta isticmaalka habboon ee dhulka iyo nolosha bulshada. Senegal sida waddamada kale ee Afrika nabaadguurka waxaa sababay ficil bani aadamku ay sameeyeen maadaama dadku ay burburiyeen wax badan oo aanay dhisi karin. waa dadka kuwa jaraya geedaha ee kaymaha gubaya. On brûle la forêt et on ne laisse pas grand-chose. Ça c'est un. arrinta labaadna waa isbeddelka cimilada sida roob la'aanta heerkulka iyo carraguurka. Et le milieu se dégrade. Ça aussi c'est un constat. waddanka Senegal amaba saaxil waxa uu u dhexeeyaa saxaraha iyo safaanaha waa meelaha khatarta ugu jira isbeddelka cimilada balse waxaa jira bulshooyin sida haweenkan oo kale oo la dagaalamaya arrintaasi. Mayan Munasen waxay hogaaminaysaa dadaal haween oo ay deegaankan kaga shaqaynayaan wax soo saarna ay ku samaynayaan. waxay ka mid tahay qorshayaasha la dagaalanka xaalufka. waxaa sidoo kale ay diyaarinayaan dhul ay ka beeri doonaan midho aan hore halkan uga bixi jirin. ala fof bone koddugal amen e tawno ɗo ko min jooɗi min ngala liggey. doorkaygu waxa weeye inaan hogaamiye haweenkan oo aannu halkan joogno maalintii oo dhan si aannu howlahan u qabanno. qorshaha haweenkani waxa uu sugay amniga cuntada ee Senegal. shaqo abuur ayay sameeyeen halka ay meel kale u haajiri lahaayeen sannadka oo dhan halkan ayay deggan yihiin. riyadeedu waxay tahay inaannu beerno dhir badan sidaas awgeed xooluhuna waxay helayaan waxay cunaan. beertu sideedaba dadka way kaalmaysaa. iminka waxaannu haysannaa khudaar taasoo aannu meel fog ka raadin jirnay. qorshahan gidaarka cagaaran wuxuu sahli doonaa inay xoolo badan ku dhaqmaan halkani Senegal sababtoo ah dadku waxay dib u dhisteen guryahoodii. hadda shimbiraha iyo xoolihii ayaad halkan ku arkaysaa kuwaasoo halkan aan lagu arag 20 ilaa 40 sano. beeralaydu meelay tegayaan ma jirto. ardayduna dugsiyada ayay u wadanayaan si caadiya. Depuis 40 ans même et qui sont en train de revenir. Mais la population aussi a gagné beaucoup dans ces impacts. Puisque comme vous le voyez, je le disais hier, les éleveurs ne vont plus en transhumance, les enfants restent et les écoles marchent mieux. waqti xaadirkan 142 arday ayaa dhiganaya dugsiga Ibrahim waxaana uu ku qanacsan yahay inuu caawinayo oo horumar uu la tiigsanayo si bulshadan ay wax ugu soo celiyaan ardaydu. Il n'y a personne, par exemple, de la localité qui est dans le personnel administratif. ma jiro qof deegaankan u dhashay oo ka shaqaynaya maamulka gudaha amaba jagooyinka dawladda. taasi waan rajaynayaa mustaqbalka dhow. carruurtan ayaa doorkaasi qaadan doona. Cornel Baba waxa uu aaminsan yahay in qorshaha dhirbeerista ee ay ku soo ceshanayaan dhulka saxaraha noqday inuu guul u keenayo waddankiisa Senegal. haddii dunidu ay sii wado joojinta isbeddelka cimilada ee ka yimi ficilka bani aadamka ee ka soo bilaabmay xaalufinta dagaalka saxaruhuna waa uu xoogaysan doonaa. bilowgan guulaystay ee gidaarka cagaaran ee Senegal ka hirgalay waxa uu cashar wanaagsan u yahay dhammaan bulshooyinka arrintaasi la tacaalaya ee ku nool waddamada kale ee qaaradda. barnaamijkii arrimaha caalamka oo aannu kaga hadalnay nolosha saxaraha iyo dadaalka dhirbeerista iyo biyoqabatanku sida ay uga hortagaan saxaraha iyo xaalufka waa naga intaasi. tan iyo kulan dambe nabadgelyo.